الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. maanteenna binaadan ahaan waan xanuunsanaynaa. qofka hadduu xanuun qabtana wuxuu markiiba uu ku degdegaa dhakhtar inuu aado. wayna bannaantahay qofki inuu dhakhtar aado. waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay likulli daa'in dawaa, xanuun kasta dawu leeyahay. xadiiskaas ayaa laga akhrinayaa, laga fahmayaa in qofka dawadaas uu raadiyo. marka hadduu jiro qof dhahaya dawadii anaa ahayo, qofkii wuu tegayaa sida dhakhaatiirta oo kale. markaasi wuxuu isku dayayaa dhakhtarkii markuu baaro qofkii in uu siiyo qofkii dawo. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ahaa dhakhtar ku daweeyey dadka diinta islaamka. nin saxaabi ah oo cuthmaan abilcaas la yidhaahdo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimid. markaasaa rasuulku wuxuu yidhi maxaa ku haya? ninkii wuxuu sheegay xanuun inuu hayo. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxaad samaysaa meesha xanuunka uu kaa hayo waxaad saartaa gacantaada, kadib 3 jeer waxaad tidhaahdaa bismi illaah, bismi illaah, bismi illaah. kadib waxaad ku dartaa 7 jeer acuudu bicizati illaah wa biqudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir. 7 jeer markaad dhahdo waad caafimaadaysaa. ninkii saxaabiga ahaa wuxuu sameeyey gacantii uu meesha saaray xanuunka hayay 3 jeer ayuu yidhi bismi illaah, bismi illaah, bismi illaah. kadibna 7 jeer ayuu wuxuu akhriyey acuudu bicizati illaah wa biqudratih min shari maa ajidu wa uxaadir. saxaabigu wuxuu yidhi markii 7aad markaan dhammeeyey xanuunkii kaannamaa lam yaxduth, isagoo dhicin oo kale. ducadaasi dadka muslimiinta af soomaaliga ku hadla la sheergaree 3 ajir oo waaweyn ayaad helaysaa. 1, xadiiska nebiga ahaa man daala calaa khayrin ka faacili, qofkii qof kale khayr u tilmaamo waxay la mid tahay isagoo sameeyey. macnaa inta qof oo ka faa'iidaysanayso ajirkooda ayaad helaysaa. maalan 10 qof aad gaarsiisay, qofkiiba ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa ku dhaqanka ducada uu ku dhaqmayo inuu u qoro 100 xasana. 100 markaad 10 ku dhifto waa 1000. 1000kaas adna waa lagu qoraya, waa hal faa'iido. 2, faa'iido labaad, qof walaalkaa ah. rasuulka calay salaam wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxib liaqiihi maa yuxibu linafsih. midkiina iimaankiina kaamil ma aha, ma dhammaystirna ilaa walaalkiisa ula jeclaado wax naftiisa la jecel yahay. caafimaadaad jeceshaa inaad lahaato, qof caafimaad qawi ah oo qurux badan oo caafimaad ka muuqda inaad noqotaa jeceshahay. faa'iida labaad waxa waaye walaalka hadduu caafimaad helo adna caafimaad ayaad heshay. waayo qofka muslimkaa qofka kale garab ayuu u yahay. marka garabkaaga caafimaad qabo adna caafimaad ayaad heshay. faa'iida saddexaad, la dagaalanka cudurrada noocu doona ha ahaado waa waajib. si mujtamaca ugu noqdo mujtamac caafimaad qaba waxaad la dagaalantay cudurrada iyo fawaa'id fara badan. cajaladdan faafi, ajirka intaasoo ajri thawaab raadi. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.